Michael Middleton oo nin Mareykan ah oo kana soo jeeda gobolka Maine ee dalka Mareykanka ayaa guursaday sanadkii 2013 Elisa Grant ee ka soo jeeda gobolka New Hampshire. Elisa waxay hadiyad u siisay Michael gaari, kombiyuutar iyo qalab kale oo qaali ah, laakiin muddo kadib ayay ogaatay in isaguna dib u sii iibgeeyay. Markii dhowr isbuuc laga joogo guurkooda ayuu xaaskiisa garaacid ku bilaabay. Booliska ayaana qabtay markii la soo daayayna ciidamo may arag meel uu jaan u cirib dhigay. lacagta uu xaaskiisa ka qaatayna waxa ay ku dhaweyd ilaa $20,000 oo uu ogolaashiyaheeda kaga qaatay. Grant waxay baadigoob ugu dhaqaaqday ninkeedii si ay uga hesho warqadda furiinka, laakiin waxay ogaatay inaanay ahayn qofka kaliya ee noloshiisa ku jirta. Waxay go'aansatay inay dhacdada booliska gaarsiiso, booliskuna dhankoodii ay ka baadigoobeen si ay gacanta ugu dhigaan. intaa kadib waxaa soo ifbaxay laba xaas oo kale oo sheegay inuu qabay. labadan haween waxay ku kala noolaayeen gobolada Alabama iyo Georgia. xaaladda intaa kuma ay akayn, waxaa soo baxday haweeney afraad oo dacwad ka furtay markii ay daawatay wareysi ay Grant siisay joornaalka Newsweek. sidaas oo kale waxaa la ogaaday in Michael Middleton uu bartay sanadkii 2016 Ashley Claymer oo markaa 25 jir ahayd. bil kadibna uu la aqal galay. muddo 3 sano ah waxa ay ku safar ku mareen dhammaan gobolada kala duwan ee dalka Mareykanka. sanadkii 2017 waxa ay dhaleen wiil ay noloshiisa kafaala qaadeen qoys ku dhaqan gobolka Missouri. booliska waxa u suurta gashay inay ku qabtaan Michael magaalada Columbus ee gobolka Ohio isagoo ku eedeysnaa inuu xaasas badan guursaday. waxaana caddaatay inay soo baxeen amarro kala duwan oo xagga garsoorka ka yimid, kuwa oo lagu doonayay in lagu qabto Michael. waxaana ka mid ahaa amarada xadgudub qoys, gaari uu kaxeeyay xilli uu sakhraansanaa isagoo aan haysan ruqsadii dareewalnimo, iyo liiska gaari kaxeynta iyo sharci jabinno kale.